أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan waxyar ka akhrinayaa duulaanka Xunayn. waxaad u jeedaa videogan bartuu ka dhacay duulaanka Xunayn oo u dhaxaysa Maka al-Mukarrama iyo At-Taa'if, oo Maka al-Mukarrama u jirta 32 kilomitir. goobta dagaalka waxaa kala gooyay dariiqaas iyo dariiqyo kale iyo buundooyin oo laga dhisay zamanka Aala Sacuud. qabiilka Hawaazin wuxuu ibn Isxaaq yiri, qabiilka Hawaazin markay maqashay siduu Ilaahay rasuulkiisa sallallahu alayhi wa alihi wasallam ugu furay Maka al-Mukarrama waana bisha Ramadaan ee sanadka 8aad ee hijrada, ayaa waxaa soo ururiyay oo isu keenay Malik bin Auf an-Nasri, laba qabiil oo gaalada ugu weynaa waxay ahaayeen Hawaazin iyo Thaqiif, oo laga wada adkaaday labadoodaba khalqi badanna duulaankaas looga laayay. muslimiinta waxaa ka shahiiday 4 nin uuna ka mid yahay Ayman bin Ubayd al-Hashimi oo ay dhashay Ummu Ayman Baraka. 2 Yazid bin Zam'a oo u dhashay Qurayshta bani Asad. 3 Suraqa bin al-Harith al-Ansari. 4 Abu Amir al-Ash'ari oo ah Abu Musa al-Ash'ari adeerkiis. Malik bin Auf wuxuu dirsaday markuu rabay duulaankaas inuu dhinaciisa ka soo galo rag u keena warka ciidanka muslimiinta, waxayna u soo noqdeen ayagoo garbaha iyo xusullada laga wada dhilqiyay. markuu weydiiyeyna waxa ku dhacayna waxay yiraahdeen, waxaan aragnay rag cadcad oo fardo midabkoodu baro cadaan iyo baro madow leeyihiin saaran. markaasay waxaad u jeedo nagu dhigeen. malaa'ig bay ahaayeen oo garbaha iyo xusullada ka dhilqisay. Xunayn malaa'igtu goobjoog ayay ahayd, mase dagaalamin, oo duulaan aan ahayn kii Badar malaa'igtu ma dagaalamin. gaalada waxaa laga soo qafaalay khalqi badan oo haween iyo caruur u badan iyo kumanyaal xoolo ah. haweenka qafaalkaas waxaa ku jiray Sayida Xaliima as-Sacdiya, hooyada soo nuujisay nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam siday riwaayad u warisay, iyo gabadheeda Ashaymaa oo nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam walaashiis xagga nuugmada ah waxna ka soo korisay. qisooyin cajiib ah oo badan ayaa ku jira maalinta Xunayn oo uu midood quraanku noo sheegay, sida markuu ciidanka muslimiintu Maka ka soo baxayay ayagoo in ka badan 10,000 oo nin ah ayaa midkood wuxuu yiri, maanta tira yari naloo ka adkaan mayo. markaasay gaaladu waxay u galeen buuraha aad u jeedid dhexdooda oo ay mar kadis ku soo weerareen. markaasay muslimiin badani carareen. waana dhacdo ay ka waramayso aayadaha 25 iyo 26 ee suuratu Tawba. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إلى آخر الآية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
dhulkan aad u jeedid oo buundadu ku taallo iyo dariiqa buundada kor mara iyo dhinacyadeedaba waxay ka mid ahayd goobta dagaalka maalinta Xunayn. goobtii weyneyd waa arki doonaa iyadana. meesha bannaan oo buundada dhinaceeda ah waa meesha aad musawirka ku aragtay anigoo taagan. halkaasna waxaa ku ooli jiray ceelka Xunayn oo la oran jiray Mushaash iyo Caynu Zubayda. duulaanka Xunayn wuxuu magaca ka qaatay ceel halkaas ku ooli jiray oo magaaladaba hadda magaciisa ay qaadatay. barta uu ku yaalla ceelkaas waxaa la yidhaahdaa Saciid al-Cuqda. waxaa la oran jiray ayuu yiri albalaadiyu, ceelkaas waxaa la oran jiray almushaashu. waxaa kaloo la oran jiray Caynu Zubayda. waana barta aan anigu taaganahay ayuu ceelku ku yiilay oo ka mid ah goobta dagaalka. maalinta Xunayn gaalada waxaa laga dilay khalqi badan, muslimiintana waxaa ka shahiiday 4 nin oo kala ah: 1 Ayman bin Ubayd al-Hashimi, wiilka ay dhashay Ayman Baraka. 2 Yaziid bin Zamca oo u dhashay Qurayshta bani Asad. 3 Suraaqa bin al-Xaarith al-Ansaari. 4 Abu Caamir al-Ashcari oo ah adeerka Abi Muusa al-Ashcari radiyallahu tacaala canhum ajmaciina. waxaad u jeedaa qubuurtoodii iyo qabriyadoodii. nebiguna dhinaca kaluu ku taagnaa calayhi salaatu wasalaam oo waa u jeeday dilkooda.